xiisad dagaal ayaa ka soconaysa magaalada Kismaayo iyadoo halkaasi la iskugu geeyay ciidankii ugu badnaa oo gebi ahaanba la rabo in laga hortago ciidamo dhawaan ay dowladda federaalka ay ku daadgureysay magaalada Raaskambooni oo wax yar u jirto magaalada Kismaayo iyadoo gebi ahaanba ciidankaasi la sheegay inay soo qabanayaan madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland. dhinaca kaleeto waxay dowladda federaalka lacaga ay ku harqisay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulkaasi Jubbaland kuwaas oo gebi ahaanba la rabo in ciidankaasi la kala jebiyo sifo gebi ahaanba ay ugu fududaato in ciidankaasi la soo dhaxgalo. saaka subaxnimadii hore ciidan ee markaasi aad u tiro badan ayay dowladda ka dejisay magaalada Garbaharey. ciidankan oo 2 diyaaradood ay wadeen ayaa gebi ahaanba halkaasi lagu diyaarinaya iyadoo la rabo in gobolka Gado gebi ahaanba gacanta uu galo dowladda federaalka. qorshaha dowladda ayaa in gebi ahaanba Axmed gacantiisa laga saaro inta badan deegaanada uu ka arrimiyo sida gobolka Gado iyo waliba qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhaxana hore ayayba uga maqnayd oo gebi ahaanba waxa gacanta ku haya ururka argagixisada. ciidamadii ugu badnaa iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland isku keenay magaalada Kismaayo kuwaasi oo gebi ahaanba la rabo inay duulaan iyo weerar ay ku qaadaan goobaha markaasi lagu tuumayay in laga soo maleegayo weerarada la rabo gebi ahaanba in lagu khalkhalgeliyo amniga maamulkaasi Jubbaland. qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka maamulkaasi Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay markaasi u diyaar garoobeen wax kasta oo duulaana ooga imaan kara dhanka dowladda federaalka. waxaa xiran garoonka magaalada Kismaayo, waxaa dhinaca kaleeta xiran garoonka magaalada Doobley. wayna adag tahay gebi ahaanba halkaasi inay kasoo degaan diyaarado aysan ogeyn dowladda federaalka. dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa gebi ahaanba haatan ku jiro go'doonkii ugu weynaa iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland uusan dhinacna uga bixi karin maamulkiisa. waxaana madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu sheegay inuusan ka baxaynin magaalada Kismaayo ilaa iyo inta uu ka horeynayo waxa uu yeedhay duulaanka qaawan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fargelinaya maamulkiisa. shalayto maxkamadda sare ee dalka ayaa amar ku soo saartay in Axmed Maxamed Islaam meel kasta oo uu tago laga soo qaban karo loona soo gacan gelin karo dowladda federaalka. codsigan maxkamadda sare uu gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si degdeg ah loo aqbalay. waana qorshe kale oo gebi ahaanba la rabo in markaasi lagu sumcatiro madaxda maamulkaasi Jubbaland. shalayto doorasho markaasi ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa gebi ahaanba ay dowladda federaalka u aqoonsatay mid waxba kama jiraan. taasi beddelkeedana waxay ogolaatay dowladdu isla markaana aqoonsatay doorashadii uu isku caana shubay siyaasi dowladda federaalka ay wadatay oo gebi ahaanba ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland kaasi oo xabsi guri ku ah magaalada Kismaayo. ciidamadan weerarka iyo duulaanka ku soo qaaday magaalada Kismaayo ee dowladda federaalka ka socdo ayaa qorshahooda yahay inay markaasi difaacaan ninkan isku caana shubtay ee dowladda federaalka ay markaasi u aqoonsatay madaxweynaha maamulka Jubbaland kaasi oo haatan gacanta ugu jiro nabad sugidda maamulkaasi Jubbaland. si kastaba xogaa ayaa intaasi ku darayo in dowladda federaalka inta badan gobolka Gado ay gacanta ku dhigtay sidoo kaleetana ciidamadii shalay laga dejiyay degmada Raaskambooni ay haatan diyaariyeen qorshihii gebi ahaanba lagu geli lahaa magaalada Kismaayo. waana qorshe dowladda federaalka ay wado inay dhiig uga daadiso magaalada Kismaayo shacabka ku dhaqan. waxaa shacabka iyo waliba cid kasta oo ku dhaqan magaalada Kismaayo lagu wargeliyay inay u diyaar garoobaan difaaca iyo waliba sidii ay iskaga dhicin lahaayeen ciidamo beeleedkan gebi ahaanba laga soo abaabulay dhanka magaalada Muqdisho. waa sida ay sheegeen madaxda maamulkaasi Jubbaland. guud ahaan dawadayaal xeebaha ka soo kordho qaybaha dambe ee wararkana ayaan ku soo gudbin doonaa iyadoo waliba isha aynu ku haynayno xiisada xoogan iyo waliba abaabulka dagaal ee ka soconaya magaalada Kismaayo.